kulan wacan halkan waa Runmaal Media saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay tan iyo tabinteennii hore Mareykanku wuxuu sheegay in saldhig uu ku leeyahay dalka Jordan lagu weeraray laba gantaal oo plastic ah kadib 48 saac oo ay hakad ku jiraan weerarada isdhaafsanayaan Iran iyo waliba Mareykanka Iran dhinaceeda kama hadlin inay weerar ku qaaday saldhig Mareykanku ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wax yar ka hor inta uusan la kulmin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku sugan Mareykanka waxa uu sheegay hadal dad badan ka yaabiyay oo u dhignaa ma aqbali doono soo jeedin la xiriirta xaaladda Iran oo uu nasiyo Benjamin Netanyahu Trump wuxuu sheegay in Israa'iil ay doonayso in dagaal Mareykanku daba dheeraado uu la galo Iran haddaba maxaa isku soo aadiyay weerarka lagu qaaday saldhig Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe iyo hadalka Trump dhinaca kale diyaaradaha dagaalka ee Sacuudi Carabiya waxa ay weerar ka geysteen dalka Ciraaq qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan halkan waa Runmaal Media haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsan tahay like saar muuqaal kalena wadaag asxaabtaada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal si weyn u soo jiitay indhaha caalamka jeediyay wax yar ka hor kulankii uu aqalka cad kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waraysi uu Trump siiyay Fox News wuxuu si cad u sheegay inuusan ogolaan doonin in Israa'iil ay ku riixdo Mareykanku inuu sii wado dagaalka ka dhanka Iran Trump ayaa sheegay in Netanyahu uu doonayo in Mareykanku weerar ku qaado xarunta buuraleyda ah oo loo yaqaan Jabal Al-Fas isagoo ku eedeeyay in ujeedada ugu weyn ay tahay in Mareykanka lagu sii hayo dagaalka wuxuu yiri Netanyahu wuxuu rabaa inaan weerar ku qaadno buurta sababtoo ah wuxuu doonayaa in aan dagaalka sii wadno uma baahni inuu arintaasi ii sheego mana u baahni xogta sirdoonka Israa'iil waayo waan fahamsanahay waxa uu doonayo hadalkan ayaana yimid saacado kadib markii warbaahinta Mareykanka oo ay ku jiraan warbixino laga soo xigtay ila kala duwan ay sheegtay in Netanyahu uu Trump u gudbin doono xog sirdoon oo cusub oo lagu sheegayo in Iran ay dib u xoojisay howlaheeda nukliyeerka gaar ahaan xarun dhulka hoostiisa ku taala deegaan loo yaqaano Jabal Al-Fas hadalka Trump ayaa muujiyay in uu doonayo in go'aanada amniga qaranka Mareykanka ay ku saleysnaadaan qiimeynta Washington halkii ay ka ahaan lahaayeen cadaadis ama xog ay soo gudbiyaan xulfada sidoo kale wuxuu tilmaamay in Mareykanku leeyahay awood sirdoon oo u gaar ah isla markaana uusan u baahnayn in Israa'iil u sheegto xaaladda Iran khilaafka muuqda wuxuu iftiiminayaa kala aragti duwanaansho isa soo taraysa oo u dhaxaysa Trump iyo Netanyahu inkastoo labada dal ay weli xulafo istiraatiiji ah yihiin falaqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in hadallada ay muujinayaan in Trump uu doonayo in uu xadido kulug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Iran halka Israa'iil ay sii wado dadaalada ay ku doonayso cadaadis military oo dheeraad ah oo Tehran la saaro kulanka aqalka cad ayaa la filayaa inuu diiradda saaro mustaqbalka dagaalka Iran barnaamijkeeda nukliyeerka iyo sida labada dal ay ugu wada shaqayn karaan amniga Bariga Dhexe iyadoo indhaha caalamku si dhow ula socdaan natiijada wada hadalladaas iyadoo hadalkaasi uu Trump warbaahinta siiyay oo si weyn uga yaabiyay caalamka oo dhan ayaa haddana Centcomka Mareykanka ee Bariga Dhexe waxa ay sheegtay in laba gantaal oo plastic ah lagu weeraray saldhig uu Mareykanku ku leeyahay dalka Jordan weerarkan waxa uu imaanayaa 48 saac la soo dhaafay oo hakad ku jireen weerarada ay isweydaarsadaan labada dhinac weerar gantaal oo lagu qaaday saldhig Mareykanku leeyahay oo ka dhexdhacay xilli ay jirto xabad joojin jilicsan xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Centcom uu shaaciyay in laba gantaal oo plastic ah lagu weeraray saldhig ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin Bariga Dhexe sida ay Centcom sheegtay nidaamyada difaaca cirka ayaa qabtay gantaalada ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedyadooda waxaana ciidamada la geliyay xaalad feejignaan oo sare warbaahinta Mareykanka gaar ahaan Axios ayaa ku warantay in saldhigga la bartilmaameedsada uu ku yaalo dalka Urdun inkastoo Centcom aysan si rasmi ah u magacaabin goobta la weeraray ila amni ayaa sheegay in baaritaano lagu wado cidda saxda ee ka dambaysa weerarka iyo halka laga soo tuuray gantaalada wararka hordhaca ah ayaa weerarka ku eedeeyay inay Iran ka dambeysay balse telefishinka dawladda Iran ayaa si degdeg ah u beeniyay in ciidamada dalkaasi ay soo saareen wax war saxaafadeed ah oo sheegaya in ay iyagu weerarkaas fuliyeen dawladda Tehran waxay ku adkaysatay inaysan jirin wax war rasmi ah oo muujinaya inay jabisay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee aan rasmiga ahayn ee kala dhaxeeyay Mareykanka
dhacdadan ayaa timid xilli Mareykanka uu Jimcihii hakiyay duqeymaha uu ku waday gudaha Iran halka Iran ay dhankeeda ku dhawaaqday inay sidoo kale joojisay weeraradii ay ku beegsanaysay ciidamada Mareykanka. inkastoo aan la saxiixin heshiis rasmi ah, labada dhinac waxay muujiyeen calaamado muujinaya inay doonayaan in xaaladda la dejiyo si looga baaqsado dagaal ballaaran oo gobolka ku fida. si kastaba ahaatee, weerarkan cusub wuxuu halis gelinayaa dadaaladaas haddii Mareykanku go'aansado in uu weerarkan uga jawaabo duqeymo militari ama haddii Iran ay si rasmi ah u sheegato mas'uuliyadda weerarkan. waxaa suuragal ah in labada dal ay dib ugu laabtaan isweydaarsiga weerarada ee toddobaadyadii la soo dhaafay ay isweydaarsanayeen, taasi oo sii hurin karta colaadda gobolka. dhanka kale, Israa'iil ayaa muddooyinkii dambe si joogto ah u muujinaysay walaac ku saabsan barnaamijyada gantaalada iyo nukliyeerka Iran, iyadoo madaxdeeda ay ku baaqayeen in cadaadis militari lagu sii hayo Tehran. falanqeeyaal badan ayaana aaminsan in Tel Aviv ay door bidayso in aan Iran la siin fursad ay dib ugu soo kaban karto awooddeeda militari, halka maamulka Mareykanka uu u muuqdo inuu isku dayayo inuu dheeli tiro taageerada xulafadiisa iyo ka fogaanshaha dagaal cusub oo muddo dheer socda. saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa muhiim u noqon doona go'aaminta jihada ay xaaladdu u socoto. jawaabta rasmiga ee Mareykanka iyo haddii Iran ay qaadato ama beeniso mas'uuliyadda weerarka waxay si weyn u saameyn doontaa mustaqbalka xabad joojinta hadda jirta iyo amniga guud ee Bariga Dhexe. dhinaca kalena, diyaaradaha dagaalka ee Sacuudi Carabiya ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay weerar ka fuliyeen gudaha dalka Ciraaq. weerarka ay ciidamada boqortooyada Sacuudi Carabiya ka fuliyeen dalka Ciraaq ayaana imanaya kadib markii dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay shalay ku eedeysay maleeshiyaad ay Iran taageerto oo ku sugan gudaha Ciraaq ay weeraro ku soo qaadeen kaabayaasha tamarta ee Sacuudi Carabiya. xiisadda Bariga Dhexe ayaa gashay marxalad cusub kadib markii wasaaradda difaaca Sacuudiga ay shaacisay in ciidamada cirka ee boqortooyada iyagoo kaashanaya diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeymo qorsheysan ka fuliyeen bariga dalka Ciraaq. weeraradan ayaa lagu bartilmaameedsaday goobo ay Sacuudigu sheegeen in ay ahaayeen xarumo kaydka hubka ah, saadka iyo talis oo ay isticmaali jireen kooxaha hubeysan oo ay Iran taageerto. sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Sacuudiga, duqeymahan waxay jawaab toos ah u ahaayeen weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga soo qaaday gudaha dalka Ciraaq, kuwaasi oo lagu beegsaday xarumaha shidaalka ee bariga Sacuudiga iyo agagaarka magaalada Riyaad. ciidamada difaaca cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay inay soo rideen dhammaan diyaaradahaas kahor inta aysan gaarin bartilmaameedyadooda, iyagoo ku eedeeyay maleeshiyaad ay Iran taageerto inay ka dambeeyeen weeraradaas. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa isna xaqiijiyay inuu ka qayb qaatay howlgalka, isagoo sheegay in weerarada lagu beegsaday xarumo saadka iyo baqaaro hub oo isticmaali jireen kooxo xiriir la leh Iran. CENTCOM waxay sheegtay in tallaabadan ay daba socotay weerar isdaba joog ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka iyo kaabayaasha tamarta ee Sacuudiga, isla markaana ujeedadu ahayd in la yareeyo awoodda kooxahaas. duqeymahan ayaana sare u qaaday walaaca laga qabo in dagaalka u dhexeeya Iran iyo xulafada uu ku fido dalal kale oo gobolka ah. khubaro amni waxa ay ka digayaan in haddii weerarada iyo argoosiga noocan oo kale ay sii socdaan ay halis gelin karaan amniga marinada tamarta iyo xasiloonida guud ee Bariga Dhexe. ilaa iyo hadda dowladda Iran si rasmi ah ugama soo jawaabin eedeymaha loo jeediyey, halka dowladda Ciraaq ay hore u sheegtay in ay ka shaqayn doonto in dhulkeeda aan loo adeegsan weeraro ka dhan ah dalalka deriska ah. weerarada ay Sacuudi Carabiya ka geysatay gudaha Ciraaq ayayna sheegtay inay jawaab u ahaayeen weeraro ay sheegtay in kooxo ay Iran taageerto ee ka soo qaadeen gudaha Ciraaq, iyagoo oo bartilmaameedsaday kaabayaal dhaqaale oo ay leedahay boqortooyada Sacuudi Carabiya. guud ahaan saaxiibayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsan tahay. muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada.